tartanka Mareykanka iyo Shiinaha sidee buu xilli cusub oo colaadeed uga bilaabay marin-biyoodka Taiwan? Anigoo Maxamed Abuukar Kulmiye ayaa warbixintan idin tabinaya ee markale soo dhawaada. Ugu horeyn aynu gudagalno hordhaca sheekadeena. Waxaa cirka isku sii shareeraya warka ka soo yeeray afhayeenka aqalka Koongareeska Mareykanka Nancy Pelosi oo booqasho ku tagtay Taiwan, iyada oo ay dood ka dhex taagan tahay gudaha Mareykanka taasoo ku saabsan in booqashada xitaa lagama maarmaan tahay iyo in kale. Taiwan waxay had iyo jeer ahayd goob muujisa iska horimaadka u dhexeeya siyaasadaha rasmiga ah ee Mareykanka iyo diblomaasiyadiisa dhabta ah. Inkasta oo Washington ay si guud u aqoonsan tahay madax-bannaanida Shiinaha ee Taiwan, waxay sii wadaa xoojinta saameynta iyo xiriirka ay la leedahay jasiiradda si ay u wiiqdo madax-bannaanidaas. Maxay Washington runtii ka rabtaa Taiwan? Waa maxay sababta Shiinuhu ugu sii adkeysanaya arrintan? Ma waxay muujinaysaa iska horimaad dhow oo ka socda marin-biyoodka Taiwan? Tani waa waxa David Sacks oo ka tirsan golaha xiriirka dibadda uu ugaga hadlayo maqaal uu ku qoray Foreign Policy. Tarjumada qoraalka. Ciidanka waxay u arkaan fikrad khaldan xilligan. Taasi waxay ahayd hadalkii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee dabayaaqadii bishii July ee ku saabsanaa safarkii afhayeenka aqalka Nancy Pelosi ee Taiwan. Pelosi lafteedu waxay qiratay arrintani mar wax laga weydiiyay hadalka madaxweynaha, waxayna tiri malaha militariga waxay ka baqeen in Shiinaha soo rido diyaaradaheena. Hadalladan waxay muujinayaan in Mareykanka laga yaabo in uu sirdoon ama digniin gaar ah ka helay Shiinaha kuna saabsan inuu Shiinuhu damacsan yahay inuu qaado tallaabo sare u kac ah oo aan horey loo arag haddii Pelosi ay dhab ahaantii booqato caasimadda Taiwan ee Taipei. Waxa ay u muuqataa in wadahadalkii labada saacadood qaatay ee u dhexeeya madaxweynayaasha Shiinaha iyo Mareykanka aanay waxba ka yeelin in xaaladda la dejiyo. Soo koobidda rasmiga ah ee Shiinaha ee wadahadalka ayaa soo xigtay digniinta madaxweynaha ee Xi u diray dhiggiisa Biden, taasoo ah in kuwa ku ciyaara dabka la qaban doono dhamaadka. Booqashada Pelosi waxay ku reebtay siyaasad-dejiyaasha Mareykanka fursado yar oo wanaagsan. Haddii Pelosi ay baajin lahayd safarkeeda markaas, waxay ku dhiirigelin lahayd Shiinaha inuu kordhiyo cadaadiska uu ku hayo Taiwan, halka booqashaduna ay sababi lahayd khalalaase, maadaama Shiinuhu uu ku qasbanaan lahaa in uu ka jawaabo si aan hanjabaadiisa loogu arkin hadal maran. Si kastaba ha ahaatee, waa qalad in la rumaysto in booqashada Pelosi ee dhowaantan ay go'aamin doonto in iska horimaad muhiimka ahi uu ka dhici doono marin-biyoodka Taiwan iyo in kale. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa durbaba u sii socda khalalaase, maadaama Shiinaha uu leeyahay awood ciidan oo muuqda, isla markaana aan danaynayn in uu ilaaliyo xiriirka uu la leeyahay Mareykanka sidii hore ayaa noqday mid diyaar u ah inuu ka jawaabo wax kasta marka loo eego xasaradaha hore. Dhammaan dareenka ay booqashadii Pelosi heshay ma aha intii ugu horeysay ee nooceeda ah. Waxaa jiray booqashooyin dhowr ah oo la mid ah kuwa horey u dhacay, waxayna ahaayeen kuwo si buuxda u waafaqsan siyaasadaha hal Shiine ee Mareykanka. Iyada oo la raacayo siyaasaddaasi, Mareykanku wuxuu aqoonsan yahay Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha inay tahay dowladda keliya ee sharciga ah ee Shiinaha oo ay ku jirto jasiiradda Taiwan. Waxayna aqoonsan tahay inkastoo aan la aqbalin mowqifka Shiinaha ah in hal Shiine jiro iyo Taiwan ay qayb ka tahay, iyada oo la ilaalinayo xiriirka aan tooska ahayn ee Taiwan. Booqashada Mareykanka ma ahantii ugu horeysay. Pelosi ma aha guddoomiyihii ugu horeeyay ee golaha wakiilada ee booqda Taiwan. Nut waxa uu magaalada caasimadda ah ee Taipei kula kulmay madaxweynaha Taiwan Lee sanadkii 1997, waxaana xusid mudan in Nut uu ahaa hogaamiyihii jamhuuriga xilligii maamulkii dimuqraadiga ahaa ee Bill Clinton. Pelosi iyo Biden waxay ka tirsan yihiin isku xisbi. Sababtan awgeed, saraakiisha Shiinaha waxay rumaysnaayeen in Pelosi ay si wadajir ah ula shaqeysay aqalka cad. Si kastaba ha ahaatee, wufuudda Koongareeska waxay si caadi ah u booqdaan Taiwan. Maamulkii hore ayaa halkaasi u diray saraakiil heer wasiir ah, iyadoo xogayaha caafimaadka iyo adeegga bulshada Alex Azar uu booqday caasimadda Taiwan. Waxaa la sheegay in Pelosi ay ku safartay diyaarad dagaal oo Mareykan ah, iyada oo aysan arrintan ahayn mid cusub. Bishii Juun ee 2021, saddex mas'uul ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ay ku tageen Taiwan diyaarad ciidamada cirka ee Mareykanka. Waxaa booqashada Pelosi ka dhigaya mid ka duwan ayaa ah inay ku soo beegantay xilli ay Beijing aaminsan tahay in Mareykanka ka guurayo siyaasadda hal Shiine ah. Runtiina waxaa jiray dhowr isbedel oo la taaban karo oo diblomaasiyadda Mareykanka ku sameynaya Taiwan sanadihii u dambeeyay. Xogayihii hore ee arrimaha dibadda Mike Pompeo ayaa hambalyo u diray madaxweynaha Taiwan oo xilka loo dhaariyay sanadka 2020, waxaana maamulka Trump uu wasaaradda arrimaha dibadda ku qaabilay tiro diblomaasiyiin Taiwan ah. Hal sano ayaa maamulka Biden ee hadda jira u raacay.
xogayaha arrimaha dibadda ee hadda Antony Blinken ayaa si cad ugu tilmaamay Taiwan waddan. Maamulka Biden ayaa casuumaad u fidiyay wakiilka Taiwan ee Mareykanka si uu uga soo qayb galo caleemasaarkiisa Washington sanadkii hore, wuxuuna ku casuumay Taiwan inay ka qayb gasho shirweynaha dimuqraadiyadda. Falcelinta Shiinaha ee booqashada Pelosi waa qayb ka mid ah wax soo saar waqti aan habboonayn. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxa uu raadinayaa mar saddexaad oo aan horey loo arag xisbiga shuuciga Shiinaha tan iyo markii Mao uu ka tegay. Waxaa laga yaabaa in uu dareemay in taageerada heerka sare ee Mareykanka uu hayo Taiwan ay ka dhigi karto mid daciif ah oo ka baxsanaya xiriirka muhiimka ah ee dalkiisa, taasoo meesha ka saaraysa mansabkiisa iyo sharafkiisa waqtigaas. Waxaa ka sii muhiimsan, falcelinta Beijing waxay muujinaysaa raaxada sii kordhaysa ee rajada qalalaasaha Taiwan, xilli madaxweynaha Shiinuhu uu wajahayo cadaadis dhaqaale oo guriga ah iyo niyad-jab gudaha ah oo ku aadan siyaasaddiisa adag ee loo yaqaano Zero Covid. Ninka ayaa laga yaabaa inuu soo gabagabeeyo in qalalaasaha Taiwan uu abaabuli karo ra'yiga dadweynaha uuna sare u qaadi karo caannimadiisa. Waxaa kale oo laga yaabaa inuu go'aansaday in taageerada caalamiga ah ee Taiwan ay aad u xooggan tahay, gaar ahaan wixii ka dambeeyay duulaankii Ruushka ee Ukraine. Sidaasi daraaddeed, waxaa suuragal ah in Xi Jinping uu dareemo baahida loo qabo in la joojiyo wadamada la shaqeeya Taiwan si ay u xoojiyaan difaacooda, iyo in uu booqashadii Pelosi u helay marmarsiyo wanaagsan oo uu Shiinuhu ku sameeyay dhoolatuskii militari ee ballaarnaa ee uu dhowaan sameeyay. Dhoolatuskaasi oo tijaabinaya sida ay diyaarka ugu yihiin PLA-da inay fuliyaan howlgallo militari oo adag. Dhibaatada jasiiradda Taiwan. Xiisadda u dambeysay ee marinbiyoodka Taiwan waxay dhacday in ka badan rubuc qarni ka hor. Waxa ay ahayd khudbaddii madaxweynihii hore ee Taiwan Lee ee waxaa loogu yeero waayo-aragnimada dimuqraadiyadda Taiwan ee jaamacadda Cornell, halkaas oo uu horey uga soo qalin jebiyay, taasoo kicisay qalalaasaha 1995. Beijing ayaa waqtigaasi ka carootay arrinta ku saabsan in madaxweynaha Taiwan uu helay fiisaha uu ku booqanayo Mareykanka kadib markii xogayihii arrimaha dibadda ee xilligaasi Warren Christopher uu u xaqiijiyay dhiggiisa Shiinaha in madaxweyne Lee aan loo ogolaan doonin inuu dalkaasi galo. Iyagoo ka jawaabaya, militariga Shiinaha ayaa tijaabiyay gantaallo iyo dhoolatusyo ay ku sameeyeen marinbiyoodka Taiwan, taasoo keentay in xogayihii gaashaandhigga Mareykanka William Perry uu ku dhawaaqo in Mareykanka uu gobolka u diri doono 2 kooxood oo weerar ah. Tan iyo markaas, Shiinaha waxa uu soo saaray qalab aad u adag oo loogu ciqaabayo Taiwan, halka miisaaniyadda militari ee Taiwan ay dhaaftay tii Shiinaha 1994. Shiinaha hadda waxa uu ku bixiyaa 20 jeer in ka badan miisaaniyadda militariga Taiwan. Shiinaha waayadan dambe waxa uu noqday mid ku dhiirada dhaqdhaqaaqa ciidan ee uu doonayo in uu ku cadaadiyo dariskiisa, waxaana ay tahay inaan eegno duulaanka maalinlaha ah ee uu ku hayo hawada difaaca hawada Taiwan. Laakiin haddii Shiinaha uu fariin gaar ah u gudbiyo, waa inuu sameeyo wax ka badan dhibaateen noocaas ah, taasoo macnaheedu yahay in doorashadoodu ay noqon doonto kuwa sii kordhaya. Marka laga soo tago in uu militariga ka sareeyo Taiwan, Shiinaha waxa uu saameyn dhaqaale ku leeyahay dhaqaalaha Taiwan. Waxyaalaha ay Taiwan u dhoofiso Shiinaha waxay ka koobneyd 0.33% wadarta wax dhoofinta Taiwan intii u dhaxaysay 1995 ilaa 1996. Hadda wax soo saarka Taiwan ee Shiinaha ayaa ka dhigan 30% wadarta guud. Sidaasi daraaddeed, Shiinaha waxa uu suuqiisii ka xidhi karaa badeecooyinka badan ee Taiwaneska, tallaabadaas oo ku adkaan doonta Taiwan amaba Mareykanka inay ka hortagaan. Xiriirka Shiinaha iyo Taiwan keligii ma kobcin intii lagu jiray qalalaasihii dhowaa. Shiinaha waxa uu dan weyn ka lahaa in uu sii wado xiriir wax ku ool ah oo uu la yeesho Mareykanka. Tanina waxa ay dhacday intii lagu guda jiray qalalaasaha 1995 ilaa 1996, iyo markii dambe oo sidoo kale ay qaraxday dhibaato kale oo ka dhalatay duqeyntii aan ula kaca ahayn ee Mareykanka ku qaaday safaaradda Shiinaha ee Belgrade 1999, iyo sidoo kale dhacdadii 2001 markii diyaarad dagaal oo Shiinees ah ay isku dhaceen Mareykanka diyaarad sahan ah. Dhammaan kiisaskan, hogaamiyaasha Shiinaha waxay raadiyeen hab ay ku dejiyaan xiisadda, laakiin xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha ayaa hadda sii xumaanaya. Madaxweyne Xi waxaa laga yaabaa in uu arko in ay wax yar ka harsan tahay sii jiritaankiisa. Kadib booqashadii Pelosi, waxaan ku jirnaa xilli aad khatar u ah xiriirka caalamiga ah ee guud ahaan marinbiyoodka Taiwan. Madaxweyne Xi waxa uu dejiyay yoolkiisa ah in uu gaaro cusboonaysiin weyn ee Shiinaha 2049. Midowga Taiwan waxaa shardi u ah gaaritaanka yoolkan. Waxaa laga yaabaa in madaxweyne Xi uu rabo in uu si dhaqso ah ugu dhaqaaqo jadwalka.
ninkan uma badna inuu noolaado ilaa 2049 waa sida warbixinta ku qorane. isaga laftiisa ayaa muujiyay in arrintan aan loo gudbin karin jiilba jiil, taasoo ka dhigan inuu doonayo inuu ugu yaraan horumar la taaban kara ka sameeyo su-aasha Taiwan kadib markii uu ku adkaystay xukunkiisa xisbiga Koongareeska ee soo socda, isaga oo kasoo horjeeda kuwa ay xifaaltamaan halka kuwa daacadda u ah uu u dhiibay jagooyin xasaasi ah. Xi wuxuu heli doonaa xorriyad dheeraad ah oo uu ku gaaro himilooyinkiisa. si looga fogaado natiijada ugu xun ee suurtagalka ah ee wejiga cusub ee khatarta ah, maamulka Biden waa inuu bilaabaa dib u eegis dhammaystiran oo ku saabsan siyaasadaha Mareykanka ee Taiwan. runtii dib u eegis siyaasadeed oo noocan oo kale ah ayaa dhacday sanadkii 1994, natiijadiina isbedelo waaweyn ayaa ka dhashay isdhexgalka guud ahaan marinbiyoodka Taiwan sanadaha soo socda. mid ka mid ah mabaadi'da hagaysa siyaasadda Mareykanka waa in ay noqotaa in laga hortago weerar kasta oo Shiinaha kusoo qaado Taiwan. si taasi loo gaaro, Mareykanka waa inuu si cad u caddeeyaa in uu awood u adeegsan doono si uu u difaaco Taiwan. waxaa intaa dheer, dowladda Mareykanka waa inay hagaajisaa awoodda dagaal Taiwan ka caawisaa dib u habeynta ciidamadeeda keedka ah, horumarinta ciidamada difaaca dhulka ee Taiwan iyo inay kordhiso qarashka difaaca si ay u maalgeliso awoodaha aan caadiga ahayn. siyaasad-dejiyaasha Mareykanka waa inay sidoo kale la shaqeeyaan Taiwan si ay ugu diyaariyaan dadkeeda rayidka ah weerar suurtagal ah oo Shiinaha ah. marka la eego heerkan, booqashadii Pelosi waa lagu guuleysan waayay inkasta oo Taiwan ay u badan tahay in aanay ka helin faa'iidooyin la taaban karo booqashadeeda. waxa ay xambaarsan tahay culeyska ugu weyn ee falcelinta Shiinaha. si kastaba ha ahaatee, Pelosi ayaa dareentay in ay tahay fursaddii ugu dambeysay ee ay ku muujin karto taageerada Taiwan, iyadoo la ogyahay in ay adag tahay in ay sii ahaato guddoomiyaha aqalka wakiilada kadib doorashada soo socota. waxaa intaasi dheer, qaadashada mowqif adag oo ku saabsan Shiinaha ayaa had iyo jeer ahaa mid ka mid ah xeerarka ficilka siyaasadeed, iyadoo la ogyahay in booqashadeeda lasoo bandhigay ka hor inta aanay imaan iyada oo taageero xoogan ka helaysa Koongareeska. baajinta safarkeeda waqtigaasi waxaa laga yaabaa in ay saameyn siyaasadeed oo xun ku yeelatay gudaha Mareykanka. daawada aragtidaada qaybta hoose commentiga inoogu reeb, warbixintan noo sheer garee si uu dad badan u gaaro mahadsanid.